29 bishii Agost sanadii 1949 Ruushku wuxuu noqday wadankii labaad ee haysta hub nuclear ah xilligaas oo Midowgii Soviet qarxiyay bombadii ugu horeysay uu ku tijaabinayo hubkiisa nuclear-ka. Tallaabadaas ayaa lama filaan ku noqotay wadamada reer galbeedka sida ku xusan xog ay hayaan CIA-da Mareykanka. Sababtoo ah khubarada Mareykanka waxay markaas filayeen in Ruushka uusan awood u yeelan karin soo saaris bom nuclear ah ilaa laga gaaro sanada 1953. Wax si kadis ah u dhacay ma ahayn in bombadii nuclear-ka ee Ruushka tijaabiyeen ay noqoto mid leh awoodii ay lahayd bombadii loogu magac daray ninka buuran ee uu Mareykanka ku qarxiyay magaalada Nagasaki ee dalka Japan taariikhdu markay ahayd 9 bishii Agost sanadii 1945. hase yeeshee xog aad u culus oo ku saabsan sida bombadaas loo sameeyay ayaa loo gudbiyay Midowgii Soviet. waxaana macluumaadkaas bixiyay in ka tirsanaa dadkii ka qayb galay mashruucii lagu farsameeyay nuclear-kii ugu horeeyay ee adduunka ee uu Mareykanka soo saaray. bombadaas sameynteeda waxaa Mareykanka gacan ku siiyay dalalkii Ingiriiska iyo Canada. mashruucaas wuxuu ahaa mid sirtiisa ay aad u culus tahay sida laga soo xigtay warbixin oo sanadii 1945 daabacay wargeyska Life magazine. rag aad u tiro yar oo 10 ruux ayaa ogaa micnaha mashruucaas uu ku saabsan yahay. mid ka mid ah raggaasna wuxuu ahaa Theodor Hell. wuxuu dhashay 20 Oktoobar sanadii 1925. ninkan oo ahaa wiil ay dhaleen hooyo guri joog ah iyo aaba ganacsada ah wuxuu ku koray xilli ay xaalad adag ku jireen dadka caadiga ah ee Mareykanka. laakiin arintaas kama aysan hor istaagin Hell inuu adeegsado maskaxdiisa fahmada badan wuxuuna heer sare ka gaaray maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska. isagoo aad u daayar oo 16 jir ah ayuu boos ka helay jaamacadda Harvard wuxuuna ka qalin jabiyay sanadii 1944. fahmadiisa badan iyo aqoontiisa dhinaca sayniska ah ma aysan seegin saraakiisha Mareykanka waxayna ku tareen dad ay u kaxeenayeen xarun ay ka socotay barnaamijka sameynta nuclear-ka. horaantii sanadii 1943 Theodor Hell waxaa imtixaan looga qaaday mashruuc ay sirtiisa aad u cusleed kaasoo ka socday xarun ku taala magaalada Los Alamos. balse waxaa jirtay arin qatarteeda leh oo aysan la socon saraakiishii Mareykanka taasoo ahayd in qolkii uu seexan jiray Hell uu la deganaa arday ay isku fasal ahaayeen oo lagu magacaabi jiray Sifil Saag. Saag wuxuu ahaa wiil ay dhaleen dadkii Ruushka ahaa ee qaxootinimada ku tegay Mareykanka. wuxuu ahaa Shuuci sidoo kale ku dhashay kuna barbaaray magaalada New York. haddaba Saag qudhiisa ayuu ahaa qofkii Midowgii Soviet uga shaqaaleysiiyay Theodor Hell wuxuuna qaaday xog ku saabsan barnaamijkii nuclear-ka ee uu soo gudbin jiray Hell. bishii December sanadii 1944 saynisyahankan da'da yar ee reer Mareykan ayaa gudbiyay wax loo aqoonsaday sirtii ugu horeysay ee nuclear ee laga bixiyay xarun ku taala magaalada Los Alamos. intii lagu guda jiray sanadii 1944 waxaa ka walwalay qatarta ka dhalan karta in Mareykanka uu noqdo wadan kaliya ee haysta nuclear iyo wax ay Washington sameyn karto haddii uu qalalaasa dhici lahaa kadib dagaalkii labaad ee adduunka. Hell ayaa sidaas ku yiri maqaal u daabacay wargeyska New York Times sanadii 1997 xilligaas oo ahayd 2 sano ka hor inta uusan u dhiman cudurka kansarka. Hell wuxuu ku dooday helidii Ruushka ee hubka nuclear-ka in ay xakameysay isticmaalka hubkaas. Midowgii Soviet xilligaas ma ahayn cadow balse wuxuu xulafo la lahaa Mareykanka. wuxuu intaa ku daray dadkii ka socday Soviet-ka waxay si geesinimo leh ula dagaalameen maamulkii Naaziga. khasaare nafeed oo aad u weyn ayaana ka soo gaaray. geesinimadii ay sameeyeen waxaa suurtagal ahayd in ay guuldarro ka badbaadisay reer galbeedka. Hell waxay Soviet-ka u yaqaaneen ninka da'da yar. wuxuu macluumaad kale oo dheeraad ah ka siin jiray tiknoolajiyad kasta oo laga gaaro farsamada nuclear-ka gaar ahaan hubka ay ku jirto maadada khatarta badan dhalisa ee plutonium-ka. bombadii uu Mareykanka ku dhuftay magaalada Nagasaki ee dalka Japan waxay ka sameysnayd maadada plutonium-ka. waxay ka duwaneed bombadii lagu dhuftay magaalada Hiroshima taasoo ka sameysnayd maadada uranium-ta. sanadii 1950 Hell oo shahaadada PhD-da ka diyaarinay jaamacadda Chicago ayaa albaabka u soo garaacay ciidamadii FBI-da Mareykanka. fariin qoraaleed loo qoray qaab sir ah ama mid sarbeeba oo la helay ayaa lagu ogaaday inuu la shaqeyn jiray Midowgii Soviet. sanada kii ka horeeyay waxaa la xiray saynisyahan kale oo Jarmal ah kaasoo ka howlgeli jiray xarunta Los Alamos. wuxuu qirtay inuu sirtii nuclear-ka Mareykanka u gudbiyay Midowgii Soviet. hase ahaatee
FBI-da maysan u suuragelin Hale inay ka dhaadhiciyaan inuu wax qirto. Sidoo kale saaxiibkiisa ee qolka wadaagi jireen ee Seyfried Sachs oo su'aalo la weydiiyey waxba ma uusan sheegin. Ugu dambeyn waa uu baxsaday, wuxuuna ka duwanaa eedeysanayaashii kale, kuwaasoo xabsi qaatay, kuwo kalena loo daldalay dambiyo ku saabsan jaajuusnimo. Sanadii 1962 waxaa shaqo laga siiyey jaamacadda Cambridge ee waddanka Ingiriiska, isaga iyo xaaskiisa waxayna u guureen UK. Hale wuxuu noqday howlgab sanadii 1984 waxaana la geeyey meel isaga iyo xaaskiisa kaliya ay ku noolaadaan. Laakiin sanadii 1996 waxaa soo baxday sirtii u qarsanaan jirtay weligiis. Dadkii Ruushka ahaa ee wax ka ogaa taariikhdiisa ayaa bannaanka soo dhigay sheekadii ku saabsanayd inuu ka dambeeyey qorshihii Sofiyeetka ee ku heleen macluumaad ku saabsan nukliyeerka. Nasiib wanaag, xilligaas ma nooleen qof markhaati ku noqon karay falkii uu sameeyey. Xitaa ninkii ay saaxiibka ahaayeen ee Seyfried Sachs hore ayuu u geeriyooday. Ugu dambeyn, Hale wax walba bannaanka ayuu keenay. Isagoo u warramaya wargeyska New York Times ayuu yidhi, waxaa lagu eedeeyey inaan bedelay jidkii ay ku socotay taariikhda. Laga yaabay inaan bedelay jihadii ay u socotay taariikhda, jihadaas oo haddii aan bedeli lahayn sababi lahayd dagaal loo adeegsado hub atoomig ah, kaasoo dhici lahaa 50kii sano ee lasoo dhaafay. Tusaale ahaan, bombo nukliyeer ah waxaa lagu dhufan lahaa Shiinaha sanadii 1949 ama horaantii 1950yadii. Hagaag, haddii aan gacan ka geystay inaysan arrintaas dhicin, waan aqbalayaa dacwadda. Isagoo si toos ah u caddeeyey inuu jaajuus u ahaa Ruushka. Ma jirin wax weeraro ah oo loo adeegsaday nukliyeer oo dhacay wixii ka dambeeyey kuwii laga geystay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki 75 sano ka hor. Hale wuxuu qabriga galay isagoo aaminsan inuu arrintaas sabab u yahay.